Shantaay YouTuber Shantaay ka joog waxyaabaha aad sameynayso ama hadallada ka dhacay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta YouTube channel-ka daawanaysaan waa canaaleena. Fadlan haddii muuqaalkan uu soo gaaray subscribe, like, share, comment. Adiga ayaa wakiil inooga ah. Jumca mubaarak. Shantaay iyo maalinta Jumcada wixii kala qabsada bal halkan ka daawo. Shantaay YouTuber Shantaay ayaa had kadib loogu yeeri doonaa maadaama magaca sheekhnimada laga keenay dood fara badan. Dadka jamaacada masaajidka ayaa qayb ka ah dadka ka cabanaya Shantaay. Shantaay waxay sheegeen in kaliya uu kusoo dukado salaada casir. Hal salaad ayuu masaajidkan kusoo dukadaa oo jamaacada ka mid yahay. Wuxuu fogeeyay dariskii masaajidka oo ay sheegeen in mikrofoonadu xitaa uu dansado waqtiga uu isaga joogo. Shantaay masaajidkan qayb kama ahan ama dadka deegaanka ka mid ma ahan oo waxay sheegeen inuu ka yimaado degmada Yaaqshiid. Halkaana uu u imaaday kaliya in uu reaction ku bixiyo. Waxaan filayaa masaajidkaasi in uu firaaqo ku helay oo macnaha aysan joogin jamaacadii masaajidka ama dariskii masaajidka. Bal muuqaaladii ay ka hadleen aan bal daawano. muuqaalkan waa RTV ay u sheegeen raggan dhalinyarada. Sheekh Shantaay dadka fudud horta ku caaya cameraman-ka ninka uu wado waa aragteen ma sawirkiisa waa fuudiisa saasay u baxsan tahay waa mid ugu daranbo kaas madaxa doo ka soo xiro Sheekh Shantaay waa qaadanayna anaga Sheekh Shantaay Yaaqshiid buu degan yahay masaajidkan reaction buu u imaadaa in adwiil goal number 1 waxay sheegeen in Sheekh Shantaay YouTuber cameraman-kiisa ay fooda ka jaraan ama fooda asiga u diido. Sheekh Shantaay cameraman waxa fiicnaan lahayd inuu ka dhigto qof sunnada ugu xiran tahay sida ay sheegayaan. وهجاك أنك سعنا شنتاي وقعدنا عنايا شيخ شنتاي يخشيد بودقنياي مساجد كان رياكشن بو ماذا هل صلاة عصر بو كدكتا مساجد حتى وحال سوبيا ميكروفون لو ما دعربو marka مساجد كان ugu tukanayo kale Sheekh Shantaay ma gudmo soo jooga aniga waa ka kuleeyahay Sheekh Shantaay sida jamaacada masaajidka ay ku haysato waa in masaajidka telefoon aan la soo gali karin ayuu diiday sida hadalku ka sheegay yarkan jamaacada masaajidka ay dib isku qabaan hal salaadood oo kaliya ayuu imaada oo salaada casir ah wuxuuna u imaadaa reaction xitaa mikrofoonada wuxuu sheegeen in la damiyo. Sheekh Shantaay ma aamusi doono muuqaalkan uu ka soo jawaabi doonaa ama uu ka falcelin doonaa. Sheekh Shantaay ama YouTuber Shantaay horay waxaa loo sheegay meeshan social media la kaamirada horteeda in lagu waashana daba casar ayaa hore u sheegay wax aadan ahayn ayaan noqon doontaa haddii halkan aad soo gashid wanaag iyo soo jeedin wax dadka markaasi anfacaya joogo maxaa aragti ku laabanay dhahdaa Soomaali inta ka soo socota ayaa ka badan Shantaay inta aadan studio sameysanin waxaan kugu talin lahaa in aad maadaama hadda xoogaa magaca sameysay inaad gab ka dhahdid kadibna studio gaar ku ah inaad sameysatid saas ayaa qurux badan marka si hadalkaaga markaasi meeshas kaliya aad ugu soo jeedis hadhow faara laga soo qabtay masaajidka mobile lama soo gali karo iyo telefoonada masaajidka la yimaadid waa ka jibinaa iyo waxaas inta hirintaas ku gali lahayd reaction kaaga u bedelo studio gaar ku ah ama gurigaaga background ka sameyso isticmaal saas ayaan kugula talin lahaa YouTuber Shantaay maadaama aad ka mid tahay YouTuberada Soomaaliyeed. Sheekh Shantaay wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay in hablaha soo bixiya cawradooda ama isagoo ka hadlayo muuqaal hore oo aan ka hadlay kaas oo ku saabsanaa dhaqan xumada ama dhaqanka oo sii doorsoomayo iyo dadkii uu kasii fogaanayo xagga iyo diinta. Wareysigan ayuu bixiyay wuxuuna sheegay in dadkan soo bandhigayo cawradooda si cadna u sheegay in markaasi tahay wax laga xumaado ama wax aan wanaagsaneyn. Shantaay wareysigiisa bal in yar aan ka daawano inta aan muuqaalka u guda galin. naaskan aad banaanka dhigaysid ee baastamirka aad gelinaysiin qiimaha uu leeyahay ma ogtihiin 12 caruur ay dhashay baalkii oo dhirir jibi ah waxa soo nuugay cunaay cabaya nuugay sabjooga nuugay
si bareera ayuu dadka qaar Sheekh Shantaay wax ugu sheegaa ama ugu falceliyaa qofka si toos ah. Wuxuu sheegay in sheekh uu yahay meeshaan uu imaaday social media-hana uu imaaday in dadka wanaagga uu faro waxyaabaha xumaantan uu ka reebo. qofkana waxaa wanaagsan in marka aad wax u sheegaysid qofka inaad ugu sheegtid wado wanaagsan. hadalka wanaagsan waa sadaqo. xadiiska nabiga wuxuu ahaa kalimu dayiba sadaqa ayaa kamid ahaa. hadalka wanaagsan waa sadaqo. marka Sheekh Shantaay maadaama sheekh weyn aad tahay oo sheekhnimo aad ku imaaday social media kabta aad kusoo gashatay ay tahay kabtaas, waxaa fiicnaan lahayd in qofka aad si wanaagsan ama si naseexa leh aad wax ugu sheegtid. marka inaad qofkii si aad asigana mar labaad u falcelin u sameeyo inaad wax ugu sheegtid. qofka haddii maanta xumaan u tilmaantid, Soomaali waa taqaanaa, haddii qofka xumaan ka sheegtid xumaan loo kaa sheega asigana. marka waxaa wanaagsan ama qurux badan inaad ugu sheegtid si wanaagsan. markaasi si qofka markaasi asagoon waxba ka soo celinin ayuu kaaga qaadan lahaa waanadaada iyo hadalkaaga wanaagsan. marka Sheekh Shantaay YouTuber Shantaay muuqaalkiisa ama wareysigiisa wuxuu si bareera ugu gafaa ama gafaf ka dhaca. waxaa kamid ah in dadka markaasi abuuristooda uu ku caayo, isagana oo fiiriya markaas xoogga uu leeyahay iyo heybadda macnaha qaabka uu samaysan yahay, oo dadka kaleeta macnaha ku liido in iyaga markaasi ay yihiin dad markaasi haysta baahiyo gaara qabo, macnaha sida lixaadkooda uu wax ka sheego. marka Shantaay waxaa qurux badan in aad usoo gasho social media si wanaagsan oo daacada dadkana waxa aad ugu sheegto. haddii aad u timaaday in aad reaction bixisid ama hadalkaaga sidii liicaatay hore markii hore buu kugu sheegay in hadal furfuran aad leedahay oo microphone fiican iyo waxa aad haysatid qalab wanaagsan, haddii asaas kaa tahayna waxaan kugula talin lahaa inaad furato studio background wanaagsan. studio aad furato background wanaagsan aad u samaysato, gurigaagana waxa aad ku duubato, jamaacadana aydan kaa qeylinin, hadalkaa soo celinin, dadkana ay kugu xamanin in aad masaajid reaction ka soo bixisid. gurigaaga ku samayso ama qol gaara samayso, sidaasi ayaa wacnaan lahayd. YouTuber Shantaay kusoo dhawaaw social media-ha. horeyna waxaad kusoo gashay adigoo xoog iyo dardar ku socda. hadda deganaan muuji oo waxaaga tartiib u bedelo. qaabkii aad ku imaaday shaxda aad kusoo gashay wax ka bedel Shantaay. afar macnaha haddii aad shax weerar marka hore aad kusoo gashay bedel, qaab daafaceed u bedelo. marka daafac buuxiso. waqtigan waxaa la joogaa waqtiga adiga lagula dagaalami lahay, lagu lafaguri lahay. Shantaay YouTuber Shantaay ka joog waxyaabaha aad sameynayso ama hadallada kaa dhacayo, beri way ku keedsan yihiin. markii aad la soo baxdo ama qaab kaleeta aad la imaadid, remember way ku taalaa. Shantaay kusoo dhawow social media iyo baraha bulshada. muuqaalka maanta intaasi ayaan kaga hadli lahaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan kaa codsanaya mar labaad iyo mar saddexaad subscribe, like, share, comment. adiga ayaan wakiil kaaga dhigan.